Asalaamu calaykum waraxmatullah. Salaan dabadeed daawadayaal soo dhawaada. Magacaygu waa Shiine Geestir. Waxaan maalmahan ku guda jirnay area and perimeter of quadrilaterals, beedka iyo wareegga afar geesoorayaasha. Waxaan caawa fiidiyogan ku baranaynaa sida loo helo beedka iyo wareegga shaxanka loo yaqaano isosceles trapezium ama isosceles trapezoid. Isosceles trapezium waxaa looga yaqaanaa waddanka Ingiriiska. Isosceles trapezoidna waxaa looga yaqaanaa waddanka Mareykanka. Luqadeena hooyo waxaa lagu yiraahdaa koor labaale ah. Haddaba su-aashiina waxay leedahay find the area and perimeter of isosceles trapezium ama isosceles trapezoid. Raadi beedka iyo wareegga koor labaale ah. Shaxanka halkan nooga muuqda waa koor labaale ah. Waxaana la siiyey dhinacan oo 10 centimeter ah iyo dhinacan oo 14 centimeter ah iyo dhinacan oo 5 centimeter ah. Waxaana la yiri waxa soo heshaan beedkiisa iyo wareeggiisa. Waxay naga caawinayaa oo kaalin libax ka qaadanaysa formulka halkan noogu qoran. Qaacidadu waa furaha xisaabta looga fadhiyo. Haddaba area waxaa lagu helaa base 1 lagu daray base 2 oo lagu dhuftay height oo loo qaybiyay 2. Inaan fahno B1 iyo B2 waa laga maarmaan. Shaxanka trapezium wuxuu leeyahay 2 base. Basekan iyo basekan. Labada base waxaad kala siin kartaa number 1 iyo number 2. Number 1 baad kan ka siin kartaa, kana sidoo kale number 2 ayaa siin kartaa. Base waxaa afsmaan lagu yiraahdaa sub. Shaxanka koor labaale ah wuxuu leeyahay hal dhinac oo isku cabir ah. Dhinacan iyo dhinacan waa isku cabir. Hadday noqoto 10 halkan 10 bay noqonaysaa. Haddii halkan noqoto 5 halkan sidoo kale 5 ayay noqonaysaa. Intaa waa inaad xasuusan tahay. Shaxanka koor labaale ah waa inaad u sameysaa joog adigu joog aad shaabka kala soo baxday waa inaad u sameysaa. Joog waxaa English lagu yiraahdaa altitude ama height. Waa inaad u sameysaa dhinacna sidoo kale joog. Jooga waxaad ku qotminaysaa base-ka. Kadib wuxuu sameynayaa xagal cabirkeedu yahay 90 degree. Intaasi waa laga maarmaan in isla fahno. Haddaba aan u nimaano shaxankan halkan nooga muuqda inaan soo helno beedkiisa ama area-giisa. Area waxaa lagu helaa base 1 lagu daray base 2 oo lagu dhuftay height oo loo qaybiyay 2. waa qaacidadii oo mar labaad ku celiyay marka aan xisaabteena gelino. Area waxa la mid tahay base 1 ka soo qaad 10 inuu yahay base 1. Waxaan dhahaynaa 10 lagu daray base 2 na 14 oo lagu dhuftay height ma haysano marka waa inaan sawirno height halkan ayaan ku sawiraynaa. Halkan waan ku sawiraynaa. Markii aad height ka sawirtid caqliyan halkan waxa kaaga muuqata inuu soo baxay shaxan saddex xagal leh xagal quman. Shaxan ah saddex xagal oo xagashiisu tahay xagal quman. Dhinacana sidoo kale markaad sawirtid jooga wuxuu sameeyay xagal cabirkeedu yahay 90 degree. waxaana kuu muuqata halkan inuu sawirkan kaaga soo baxay saddex xagal leh xagal quman. Haddaba saddex xagal kale xagal quman dhinaciisan iyo kanna sidoo kale dhinaciisan seen ku soo helnaa cabirkooda. Joogu dhammaantii waxaan ka wadaa base-ka dhammaantii wuxuu ka koobnaa cabirka 14 centimeter. Markaad sawirtay jooga waxaa ka go'day base-kii intaas. Intaa cabirkeeda iyo kan kale intaa cabirkiisa inaan soo helno waxaa laga maarmaan ah inaad u fiirsatid dhinacan cad oo cabirkeedu noqotay 10 centimeter. Waxay isku cabir noqdeen dhankii ka soo horjeeday ayay isku cabir noqdeen. Waad u fiirsanaysaa waa isku cabir. Haye intan waxaad ogaatay inay 10 centimeter tahay. Marka labadan leg ee labadan saddex xagal ay kala wataan waa isku cabir iyagana sideen ku soo helaynaa. Waxaan ku soo helaynaa base-ka markiisa hore wuxuu ahaa 14
dhinacan waxay noqotay 10 marka 10 baan ka jaraynaa 14 waxaan ogaanay inay tahay 4 4 marka waxa u sii qaybsaa 2 leeg waxay noqotay 2 marka intan dhinacan marka waxay noqotay 2 dhinacan waxay noqotay 2 haddaba saan u soo helno height-ka waxayna caawinaysaa inaan soo helno dhinacan side-kan cabirkiisa haddaan side-kan cabirkiisa soo helno waxaan soo helnay ka dhigan tahay joogii ama height-kii trapezium-kan ama isosceles trapezium-kan lanoo diray marka inaan soo helno dhinacan inaan soo helno waxay naga caawinaysaa xisaabta loo yaqaano Pythagoras theorem Pythagoras theorem formulkeedu wuxuu ahaa a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran haddaba waxaa laga maarmaan ah markaan shaxanka saddex agalka leh xagasha quman aan u fiirsanayno inaan soo helno dhinaciisa ugu dheer waa muhiim dhinaciisa ugu dheer wuxuu kasoo horjeedaa maan dhahnay xagasha quman ayuu kasoo horjeedaa waxaa la yidhahdaa dhinaca ugu dheer shakaal Englishka waxaa lagu yidhahdaa hypotenuse waxaa la siiyaa xarafka c haye hypotenuse-ki waxaan haysanaa 5 centimeter labadiisa dhinac saddex agalka leh xagal quman markii la soo heliyo dhinacyadiisa labadiisa dhinac waxaa la kala siiyaa leegan iyo leegan waxaa loo kala bixiyaa a iyo b midkaa doonto ayaad u bixinaysaa a iyo b haddaba kaan haysano cabirka labada ah aan u bixino b kanaan b u bixinaynaa waxaan raadinaynaa dhinacii a markaan dhahno a laba jibaaran oo ah dhinaca aan raadinayno oo lagu daray b laba jibaaran oon haysano 2 markaan waxaan dhahaynaa 2 laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran oon haysano dhinaca c 5 waxaan dhahaynaa 5 laba jibaaran marka a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran maxaan haysanaa 2 sameen 2 laba jibaaran waa mise waa 2 lagu dhuftay 2 waa 4 haye oo lagu daray 4 waxay la mid tahay 5 laba jibaaran oo ah 5 iyo 20 haye a laba jibaaran baad dhahaysaa marka a laba jibaaran waxay la mid tahay balastan waxaa u bedeshaa minus 4 dhankan ka jar dhankana waxaad ka jartaa 4 4tan iyo 4tan waa isla baxeen a laba jibaaran marka waxay la mid tahay 5 laga jaray 4 waa 1 iyo 20 a laba jibaaran waxay la mid tahay 1 iyo 20 halkaa marka aad joogtid waxaad ka saartaa xididka dhan walba ka saar xididka dhan walba waxaad ka saartaa xididka a laba jibaaran a laba jibaaran ka saar xidid a laba jibaaranka iyo xididku waa isla baxayaan a keligeed baa kusoo haraysa 21 laga saar xidid waa imisa halkan waa 21 farta si fiican uma qorin 21 laga saar xidid square root of 21 waxa weeyaan 4.58 4.58 marka waxaa soo heshay a inay tahay 4.58 a marka waa 4.58 taa macnaheedu waxa weeyaan height-kii shaxanka koor labaale ah waxaan soo helnay inuu yahay 4.58 waxaana caawisay oo kaalin libax ka qaadatay xisaabta loo yaqaano Pythagoras theorem inay Pythagoras theorem laga maarmaan tahay waxaad ku garanaysaa dhinacyada badan ee naga caawinayso hadda marka height-kii waxaan soo helnay 4.58 marka aan height-ka u bedelano halkan aan ku qorano height-ka 4.58 loo qaybiyey 2 hadda inaan xisaabtan xalino bas ah ayaana laga rabaa xisaabtan ayaan xalinaynaa haye area marka waxay la mid tahay 10 lagu daray 4 waa imisa waa 24 lagu dhuftay 4.58 oo loo qaybiyey 2
area marka waxay la mid tahay waxaa sameysaa 24 ku dhufo 4.58 taa waa samayn kartaa kadibna laba u qaybi waxaa kaloo samayn kartaa 24 laba u qaybi waa imisa waa 12 aan tana jeclahay kadibna waxaad ku dhufataa 4.58 oo ah heightkii waa imisa marka 12 lagu dhuftay 4.58 waxay noqotay 54.96 marka area waxay la mid tahay 54.96 centimeter square unitka waa inaad xasuustaa inuu yahay square marka areaga soo helaysa halkaas waxaan ku soo helnay shaxankii isosceles trapezium areagiisi anagoo raacnay oo isticmaalnay xisaabta la yiraahdo Pythagoras theoremka haddaba waxaan u gudbaynaa inaan soo helno parameterkiisa waxaan sheegay in lagu helo a lagu daray b lagu daray c lagu daray d halkan ayaan ku qoraynaa parameter marka waxa lagu helaa dhinacan isosceles trapezium waxay raacday dhinacyadiisu way isleeyihiin dhinac kamid ah dhinacyadiisu way isleeyihiin kan dhinacan iyo dhinacan way isleeyihiin marka dhinacan waxaan haysanay 5 cm dhinacana waa 5 cm marka waxaad isku dartaa dhammaan dhinacyada 5 lagu daray 10 oo lagu daray 5 kale hadana oo lagu daray 14 marka waxay la mid tahay inta marka la soo daro 5 lagu daray 10 waa 15 5 kale u gee waa 20 waxaad u geeysaa 14 waa 34 waxay la mid tahay 34 centimeter marka parameterku waxay la mid tahay 34 centimeter sidaas ayaa u xisaabsanaysaa shaxanka loo yaqaano isosceles trapezium wareegiisa iyo formula iyo beedkiisa waxaan idin rajaynayaa intaan video lamida ku kulmayno nabad iyo barwaaqo